munaasabadan oo lagaga hadlayay sidii shaqo abuur lagu sameyn lahaa dhalinyaro baratay xirfado kala duwan ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta oo ay taageerayaan hay'adaha NRC iyo sidoo kale UNCR waxaa ka qayb galay furitaankii kulankan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale isuduwayaal ka kala socday hay'adaha laamaha dawladda ganacsatada dhinaca kalluumaysiga dhismaha iyo sidoo kale dad marti sharaf ah oo lagu soo casuumay munaasabadaasi waxaa qayb ka ahaa 50 dhalinyaro oo la doonayay shaqo abuur loo sameeyo waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay kana warramay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay dhalinyaradaasi iyo bulshada magaalada Berbera Maxamuud Saleebaan Samatar oo isagu ah agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada runtii wasaaraddu iyadoo markaa ka duulaysa mandate kala siiyay shaqo abuurka laga qayb qaado carwadan shaqo abuurka waxay ka mid tahay arrimaha markaa lagu fududeeyo ama lagu abuuro shaqooyinka iyagoo runtii dalkeena runtii dhowr sanadood ku soo noqonayay hase yeeshee in markaa gobolada loo gudbiyo ay markaa runtii yarayd waxaan insha Allah ku rajoonaynaa gobolka Saaxil iyo gobolada kaleba in markaa carwooyinka shaqo abuurka laga fidin doono haddii la yiraahdo Maxamed Nageeye Aamin oo isaguna ka socday hay'adda NRC ayaa waxa uu sheegay in kulamada noocan oo kale ay ugu talagaleen inay si toos ah isu hor fadhiistaan shaqadoonka iyo shaqaalaysiiyuhu waxaana uu sheegay in mar walba ay kaalin weyn ka qaadanayaan sida ay kor ugu qaadi lahaayeen dhalinyarada sidoo kale shaqo abuur lagu sameyn lahaa waxa maanta madashan ay ku saabsan tahay amba xafladan shaqo abuurista ee halkudhigeedu yahay sida halkan ka aragtaan fadlan si shaqo abuur amba fursad shaqo dhalinyarta iyo haweenka labadaba marka dhalinyar la leeyahay haweenkuna xaq hore kaga jiraan madashan maanta marka waxa loo soo furay amba loo daafuray waxa weeye isla markaana lagu marti qaaday ganacsatada kala duwan ee halkan fadhida in dhalinyartii xirfadda la baray bal sida ugu suurta gashan waa innovation amba qorshe ay la timid wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku sida ugu fudud ee la isku keeni karo amba lagu kulmin karo qofka shaqadoonka iyo shaqaalaysiyaha waxaana loogu talagalay ujeedadu ahayd in labada qof la istuso si ay uga baxaan in qofka uu jecel yahay una shaqaalaysiin laakiin qofka u qalma xirfadda shaqo uu baahan yahay inuu shaqaalaysiyo dhalinyarta xirfadaha kala duwan baratay ha ugu horeeyaan kuwa qayb ka mid ah dhismayaasha bartay kalluumaysiga haweenka qurxinta ama beautification-ka bartay cunto karinta dawaarka dhalinyaro ilaa kutumiyaa maanta halkeena la fadhiya isuduwayaal ka kala socday wasaaradaha kala duwan ee dalka madax ka socotay shirkadaha kalluumaysiga shirkadaha ganacsiga ee dhinaca dhismaha iyo sidoo kale jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Berbera gaar ahaan jaamacadda culumta badda oo halkaasi ka hadlay iyo soo dhaweeyay kulanka noocan oo kale sidoo kalena ballan qaaday inay shaqaalaysiin doonaan qaar ka mid ah dhalinyaradan shaqo abuurka loo sameeyo aad iyo aad baan soo dhaweynaa anagu hadaan nahnay shirkadda Carrefour Insurance of Africa waxaan ka qayb qaadanaynaa carwadan ama dhiirigelintan sida ugu wanaagsan laba ardayna aanu ka hawlgelinay insha Allah magacaygu waa injineer Hibaaq Maxamed Cilmi soo kordhiyay ganacsi cusub oo dhaliyatu lagu shaqo gelin karo inaan maanta maxay toolay ka qayb qaatay shaqo abuurka dhalinyarta oo hal qofna ka qaatay halka si ila shaqeeyo markii aan la kulannay 12 arday annagu aan u tababarnay dhinaca kalluumaysiga ilaahay xamdigii 12kiiba waxa loo helay shaqo qaarkood waxay ka shaqeynayaan processorka qaarkoodna waxay raacayaan laashashka marka ilaahay uu nagu guuleeyay 12kiiba minka waxa ay shaqadoodii way bilaabantay xirfadii aan bartay waxaan aad ugu sii faraxsanahay isla iyadii inaan ku shaqo ku helo kana helo process kamid ah processada Berbera ku yaala xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa labadooduba soo dhaweeyay kulamada noocan oo kale ee kor lagu qaadayo dhalinyarada sidoo kalena shaqo abuurka lagu sameynayo waxaana uu sheegay in kaalin weyn ay ka qaadanayso kor u qaadista dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqo abuurka meelaha qaranku runtii ka tanaado ama ka hana qaado waxa kamid ah xirfadaha sida bulshada qarankaas ay u taqaano ama u barato xirfad ayaa qayb ka ah marka runtii mashruucan waa soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan u taageersanahay waxa anaga farxad noo ah tirada inta la eeg oo dhalinyaro ah oo reer Berbera ah inay horteeda yimaadaan iyagoo xirfado kala duwan bartay runtii sharaf bay noo tahay waxa weeye nooc doonto xirfadu ha noqotee qofku haduu dadaalo
shaqo uu ku helaya ama dawladda ha kaga helo ama privately ha u helo niyada waxaa ku qabsataan inaad shaqo wixii aad barateen aad ku helaysaan haddii aad cid un daba taagnaato oo tidhaahaan hebelowna shaqo gee cilmi baad barato cilmigaagii waxaa u baahan shaqadiiba marka horta taa ogow waxaana bandhigan uu ahaa carwo ay ka qayb qaadanayeen hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale wasaaradda shaqagelinta waxaana halkan aad arkaysaan muuqaallo ay foodaystareen amaba ay wada hadlayaan shaqaalihii iyo loo shaqeeyihii oo si xor ah shaqo u doonaya iyadoo aanay cidi wadin mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland berbera